Chief Caaqil Cabdilaahi Maxamed Dheeg Chief Caaqilka guud ee beesha Guuleed Garaad oo warbaahinta kula hadlay Buuhoodle ayaa baaq u diray beesha Guuleed Garaad waxgaradkeeda inay shir wada tashi isku yimaadaan deegaanka Bayaal ee gobolka Cayn oo u dhigay gogol waxa uu sidoo kale ka hadlay caleemasaarka garaadka beeshaasi Garaad Maxamed Garaad Abshi Saalax oo dhawaan lagu caleemasaari doono degmada Hubid saxaafadkeedu wuxuu daaran yahay baaqan u dirayo dhammaanba gobolka Cayn خاصة بيش Guuleed Garaad باقاas oo ah xaalada jira inaan maartay wax ka taataabto qodobka koobaad waxa weeyaan beesha Guuleed Garaad faraar badan baa ku jira waynu soognaa Guuleed Garaad oo marka hore ilaahay hayd barakeeyo way salaamaya bacda salaam وتفرارق بدن بين وجهه تفرارق وين كبحنا مهمه على مسار Garaad بين وسو وجهان sidii hore la isla qaatay dadka qaarkii oo aynaan waliba u dhameyn ay misloogeen inaan u dhameyn Guuleed Garaad aan u dhameyn sida awgeed waxaan door bidayaa jeclaysanayaa isla qaadashada Garaadka markii hore iyo waqtiga aan u aastaynay cali masaarkiisa yaan loo dhameyn sida awgeed waxaan door bidayaa idinka codsanayaa Garaadkan loo galay mise waqtiga adeer Garaadku waa ina Garaad Abshir weeye kullayna Garaad hadii la magacaabo wiilkiisu ba dhaxla waxa ka horeeya wax badan xasaasa ka horeeya dadku inuu wax ku heshiiyaa ka horeysa waxa ka horeeya in Guuleed Garaad u dhayahay sidii Garaad Abshir loogu dhamaa Garaadka dambe ee la caleema saarayo wariye waad iga duuday hadafkaygii waxaan idinka codsanayaa idinka baryayaa sida ugu dhaqso badan idinkoo garan karaya muddooyinka iyo xilliyada aad ku jirtaan inaad isugu timaadaan shir degdega gobol degdega waan idinku baaqayo oo in isku turxaan saaro wax ku heshiino sida ummadaha kale wuxuu leeyihiin dhaqankooda iyo masiirkooda uga tashadeen in masiirkeena uga tashano taas waliba inuu cid la fadhiyo maaha si gaara waxaan la sii hadlayaa uga sii codsanayaa tolkay qorada hadda ardaaga caleemasaarka wada oo teendada caleemasaarka dhisaya iyo qorada cali barkad qorana waa cali shirwa qorana waa cali barkad waxaan si gaar ah idinka codsanayaa inaad dhiga nugulaataan baaqa waxaan si gaar ah idinka codsanayaa inaad garataan qarannimadu waxay tahay waxaan si gaar ah idinka baryayaa idinka codsanayaa talada aad dhulka dhigtaan wixii musha u dana baa ilmaha u dana waxba tari maayaan waxaynu gidaarada la fadhino waxba tari maayaan waxaynu ku kala maqannahay waxba tari maayaan waxaynu isku xamanaya tafaraaraq sanadka xan iyo guriba umada ka soo haray Soomaaliyeed meelay joogtaba aan waxaan leeyahay run baynu soo imanayna gobol baan idin dhigayaa Bayaal baan idin dhigayaa reer Bayaal waxaan farayaa u dhaga nuglaada gobosha Guuleed Garaad ad u ballan qaadeen ee isla garanay u dhaga nuglaada u diyaar garooba hadda hal su'aal dibadda iyo gudaba hadda hal su'aal ku weydiin hadalkaaga wax ka dhamaysta inaad Garaadka beesha adigu taageersanaa oo baaqada marka waranaha waxa sheegay in Garaadka xoogaa idin dhaxeeyo khilaaf ku saabsan soo xulitaankii ilaa Faarax Sultaama oo marka arrimahaas bilowna kara su'aasha wadooyinka caqliga jawaab adeer waxaas hoosbaha leeyahay hadda halkan ma yaalan waxaas khilaaf kaana anigu ma ogi inuu khilaaf u dhaxeeyo aniga Garaadkana khilaaf nooma dhaxeeyo kale laakiin warxuma tashiil baa jira warxuma tashiilkuna waa iska dhamaanaya insha Allah taala sandaladan aad hayso waa saddex soo jireen mar haddii beeshu Garaad Maxamed Garaad beeshu qoratay Garaad yeelatay oo dadkii beeshu isla qaadatay maxaad gacanta u qaban weyday sida adigu sandalada aad u hayso aad u dhaxashay maxaa sabab aad la shaqeeyay Garaad inta la waxbaan markaan oo dhaxay aad u la hadlay Garaad waxba baadeer nooma dhaxeeyaan markaan run ku sheego waxa weeyaan
anugu dee barkadoo dhan baan madaxu hayay isaga keligii madaxu ma yahay barkadoo dhanna inaanu isu helaan jeclahay isu helka barkadaan doonayana karaamaan isaga la doonayo weeye ma aha midaan isaga waxyeello ugu jeedo waxaan ku yidhi war xuba tashiil baa jira suxuunsheegna sixir ka daran baa layidhi siyaasadahan iyo faarax sulubyadan iyo waxaa sheegaysoo dhan waa siyaasado beenahaydna shaqo iyo dir iyo daabaantoodna ku lahayn somalilan doorashooyin baa ka dhacay soo warad anaga doorashooyinka horena waa uga hadlay haddana de waxa weeyaan dad baa muraad ay leeyihiin fushaday dadkana wax ku shubtay waxayna khuseeyana inayan ahayn baan u malanayaa deegaanada dhulbaanta khuseeya laakiin deegaanada adiga jiif ka tahay doorasho dhacday urur bay ka dhacday bayaal bay ka dhacday ilaa bariga buuxda ka dhacday lagu codeeyay xildhibaanaha soo baxay ama goladeega ha noqdeen ama golo wakiil ha noqdeen marka miyaad adigu kuwa caaqli wahay dee anu ahaadee kuwa jabuuti oo ahado kuwa soomaaliyeed oo dhan baan u ahado mabaadi kastoo la wadaba caaqil baan u ah oo caaqilku dee maaha wax dadku meel ima fadhiyo aniga dad wax lagu shubanayaa badan miyaa laga waayaa ummadda haddii la dhex galo laakiin ma taageersan doorashada maxaan u taageeraya weligeyna ma taageerina maayo waxay u keeni weyday muraad ay leedahay ku keentiyo iyo maaragtay iyo dhaqamada jira ay iyadu iska leedahay dhulbahantee dabardalool arrintii ka dhacday laysu qori urursanayo inuu wax ka qabtaan ka codsanaya aad uga codsanaya fadhiga in looga kaco